waxaad madaxweyne dalka qabsan doontaa iyadoo qaar badan oo kumanaan oo ku codeeyay gobolka Soolha markii hore ay maanta yihiin waxa weeye mucaaradan dalkan la tusi karin oo had iyo jeer waxa weeye lagu ababiyo oo waxa weeye lagu waaniyo waxa weeye loogu heeso inay dalkan nacaan ama ay saaq waxa weeye had iyo jeer ka fogaadaan hebel madalki iyo hebel wax ma la siiyay iyo hebel gaadhu iibsaday iyo kala guriyo dhistay iyo aan kaaru degay iyo turkigu degay iyo gaadhina waxa weeye waa iskuulka caruurtiisa ku tagtaa midna uu ku soo adeegtaa waxaas cidina ka qorimayso ma aha in aad tixgeliso waxa weeye kumanaanka waxa weeye mutadaawac ee xisbiga u shaqeynaya kugu soo ururi doona mid kasta doonaya wixii xisbiga ka galay in waxa weeye loo soo celiyo ama waxa weeye boos la siiyo waxaan si gaar ah u xusayaa waxa weeye madax dhaqameedka beesha bariga burco habar jeclo oo hormuud u ahaa waxa weeye isbedelkan imika dalka ka dhacay belinta Subayrawal suldaanka guud Suldaan Xasan iyo kumanaanka kale isbedel doonka ay hogaaminayay baayaduna waxa weeye u muuqanayay qaar Soomaaliland wanaageeda ka talinaya samaroonku isagu waxa weeye markaynu eegno waxa aynu oran karnaa waxa weeye waxay ahaayeen halka ugu adag ama waxa weeye doorka ugu adag ee waxa weeye madax dhaqameed qaatay madax dhaqameedka beesha Garxajis oo ahaa kuwii dhowr iyo 10 sano waxa weeye u ceelaliyada ahaa kursiga iyagana waxaynu ka baranaynaa in wax lagu doono waxa weeye hadii bedekeed ku leeyahay samir iyo dulqaad Cabdiraxmaan waa nin shir rabano maadaama muddo dheer soo tabliiqeynay waxa weeye in sidii kursiga u gaadhi lahaa dadka codka faraha badan leh waxay muujinayaan dad ciro jecel waxay muujinayaan dad waxa weeye hadii bedekeed ku leeyahay doonaya isbedel oo noloshu ay ku adkaatay waxa weeye dad hadii bedekeed ku leeyahay xulafaa markii ugu horeysay ee dad tira inta leeg ay Soomaaliland waxa weeye oo kaararka qaatay aanay codayn kaliya ma oran karno dadkaas kaarar baa ka lumay ama waxa weeye way wahsadeen ugaas Cabdiqaadir Xaaji Faarax Xaaji Cilmi oo kamid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland isla markaana ka faalooda siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland geeska iyo caalamkaba oo halkan oo hotelka Burco International ee magaalada Burco kula hadlay qaybo kamid ah warfadiyeenka ayaa ka hadlay doorashooyinkii ka qabsoomay Soomaaliland ee madaxtooyada iyo sidoo kale xisbiyada qaranka ugaas Cabdiqaadir ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinkaasi iyo waxyaabaha ay kaga duwanaayeen doorashooyinkii kale sidoo kale ugaasku waxa uu fariin tacsiya u diray madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ku geeriyooday dhawaan magaalada Hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa weeye waxaan doonayaa inaan ka mid noqdo boqolaalka kun ee reer Soomaaliland ee u tacsiyeynaya madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo geeridii naxdinta lahayd ee ku timi dhammaan ka tacsiyeynayna ehelkii iyo qaraabadii iyo bulshooyinka reer Soomaaliland wuxuuna ka mid ahaa dadkii waxa weeye juhdiga iyo waqtiga badan geliyay in dalkani uu xoroobo wuxuu ka mid ahaa waxa weeye halyeeyada hadiyo jeer aan ugu yeeri karo waxa weeye hanti siyaasadeedka reer Soomaaliland door weyn buu ka soo ciyaaray waxa weeye halgankii sidoo kale waxa weeye xilligii lagu dhawaaqay gooniistaaga maskabiyo kala duwan oo ilaahay heer madaxweyne gaaray ayuu dalka soo qabtay ilaahay ha u naxariisto baan leenahay isagoo wixii muslimiinba waa inuu taariikhdiisa nooleynaa isagoo kuwii halyeeyadii kale ka horeeyay waxa weeye dalkan waxa weeye u soo halgamay saaxiibka ahaayeenba Siilaanyo waxa ay saaxiib dhow ahaayeen oo waxa weeye isku waqtina ahaayeen waxa weeye halyeeye kale qaran oo waxa weeye dalkan dhidibada u taagay oo ugu horeeyay waxa weeye geesigii aynu ku faano ninkii maskaxda badnaa siyaasigii waxa weeye dad geyga Soomaalida aan ka ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali oo isagu Siilaanyo ugu horeeyay waxa weeye iyo labadii madaxweyne ku xigay waxa weeye dalka oo ahaa ninkii hadii bedekeed ku leeyahay dalka xoreeyay dalka reer Soomaaliland maanta ku noolaanayno Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa xoreeyay isaga ayaana ku dhawaaqay gooniistaaga Soomaaliland sidii kuwa hore ay taariikhdooda u nooleynayna baynu Siilaanyo u nooleynayna dhamaantoodna waxa weeye waynu ducaynaynaa ilaahay waxa weeye naxariista jannaha siiyo abqarigii kala siyaasadda waxa weeye Soomaaliland maamulkeedii dawladeedkeeda ama qaab dawladeedkeeda u taagay waxa weeye dhidibada isaguna waxa weeye kamid ahaa Maxamed Raaci Gaal
qodobka labaad waxa weeye waa mahadnaq waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee imika kursiga haya Muuse Biixi Cabdi waxana uu qabtay waxana uu gaari waayay waxay imika anigu aan halkan ku xusayaa waxa weeye dhowr qodob siiba laba qodob oo legacy-ga u gali doono lagu xasuusan doono waxa weeye labadii doorasho ee waxa weeye ay imika ka soo gudubnay ee saarka tii hore ee doorashadii golaha wakiilada iyo golihii dowladaha hoose iyo tan imika waxa weeye madaxweynaha qaranka loo tartamayay isla markaana la soo saarayay ururadii waxa weeye 10 sano soo socda dalkan waxa weeye deematali laha ama hogaamin laha runtii waxaynu rajaynaynaa waxa weeye madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi in isaga laftiisu waxa weeye uu taariikhda ku gali doono wixii uu qabtay waxaynu kaloo doonayaa inaan u mahadnaqo waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo la filayo inuu laftiisu noqdo madaxweynaha lixaad ee Soomaaliland Cabdiraxmaan waa nin shir rabano maadaama muddo dheer u soo tabliiqeynay waxa weeye inuu sidii kursiga u gaari lahaa isaga iyo beeshiisu muddo dhowr iyo 10 sano already waxa weeye waa nin siyaalo badan loo shirabay waxyaalaha dadka reer Soomaaliland u qoran waxa weeye ay hadii jeer kaga sheekeeyaan waxa kamid ah inuu leeyahay 4 calaamadood oo ah dad isku wad hadii beedkeed ku leeyahay dulqaad iyo samir iyo hibe Ilaahay u siiyay waxa weeye muddo dheer dad kala duwan dhageysan karo waxa weeye uu weeraan karo waxa weeye waxay doonayaan isaga inuu waxba umaynaan dhiibin laakiin kuwaasi waa already qodobo waxa weeye u galay taariikhda de markuu kursiga ku fadhiistana bulshada reer Soomaaliland baa waxa weeye insha Allah xisaabin doonta wax qabadkiisa hadii doo wax qabtana waa alxamdulillah hadii kalena waxba kama duwana madaxweynayaasha hore ee reer Soomaaliland de kuwa waxa weeye hadii beedkeed ku leeyahay u codeeyay ayuunba ku mudaharaadi doona insha Allah waxaan filaynaa in Ilaahay ku guuleeyo oo uu dhaxda xidho waxaan kaloo doonayaa inaan u mahadnaqo waxa weeye todobadii urur iyo saddexdii xisbi qaran 10 kaas madaxdoodii oo runtii waxa weeye ahaa jilayaashii waxa weeye 13 November doorashadeedii ka qayb galayay waxay la tahay saddex un baa laga doonayaa inta kale waxa weeye soo bixi weydana insha Allah waxa weeye waxaynu rajaynaynaa guul ama waxay noqon doonaan kuwa dadaan reebtay oo waxa weeye ama arrimo dhaqaale iyo waxa weeye wixii la mid ah ku haray laakiin dadkooda u daacay iyo dalkooda u daacada ama waxay noqon doonaan kuwa markii horeba waxa weeye si khaldan loo sameeyo waxa weeye marxaati beena furay halkaas ku cabi doona waxaan kaloo waxa weeye doonayaa inaan u hambaliyeeyo madax dhaqameedka oo door muhiim ah ka qaatay doorashada reer Soomaaliland runtii oo isbaar eegtay oo waxa weeye aad meelaysay waxa weeye inay ka duwanaayeen noocyadii ay u hadli jireen ama waxa weeye ay uga qayb qaadan jireen doorashooyinkii hore ma kala reebi karno mana wada dhameyn karno inaan halkan ku magacaawno waxaan si gaar ah u xusayaa waxa weeye madax dhaqameedka beesha bariga Burco habar jeclo oo hormuud u ahaa waxa weeye isbedelkan imika dalka ka dhacay oo runtii waxa weeye cidyaha ku dagaalamayay oo waxa weeye dadka u sahmiyay oo raray oo ka run sheegay oo bulshada reer Soomaaliland inteeda kale oo dhan waxa weeye waxa tusaale aad baan ugu mahadnaqayaa deewaana kuwii waxa weeye ku guuntaday markii waxa weeye xooga geysdiidaya waxa weeye ay dalka dagaalo sokeeye gelin gaareen waxay ahayn kuwii hadii beedkeed ku leeyahay buuriya banaanba dadka bay ka soo dejiyay waxa weeye kala xukumay aad bay u mahadsan yihiin doorkoodaas halka ka sii wada baynu leenahay insha Allah belinta Subayrawal suldaanka guud Suldaan Xasan iyo kumanaanka kale isbedel doonka ay hogaaminayay baayadina waxa weeye u muuqanayay qaar Soomaaliland wanaageeda ka talinaya sidoo kale saldanadaha Arab ugaasiyada salaadiintoodu waxa weeye doorkoodii lama ilaabi karo samaroonku isagu waxa weeye markaynu eegno de waxa aynu oran karnaa waxa weeye waxay ahaayeen halka ugu adag ama waxa weeye doorka ugu adag waxa weeye madax dhaqameed qaato kuwii qaatay ilaa de ugaaskoodu dibadmeerka hayde waxa weeye waxa uu ka taliyay aad moodayso in Soomaaliland de wanaageeda waxa weeye iyo hadii bedkeed ku leeyahay in ay waxa weeye si doorasho xor iyo xalaal qabsato dadkii ku soo biiray bukumita aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo ku sii lag lahaa inta
iyaga laftooda waxa weeye sharaf iyo waxa weeye karaamo mudan in loo hambaliyeeyana waxa weeye ay muhiim tahay waxa weeye madax dhaqameedka beesha Garxajis oo ahaa kuwii dhowr iyo 10 sano waxa weeye u ceelaliyada ahaa kursiga iyagana waxaynu ka baranaynaa in wax lagu doono waxa weeye hadii beedkeed ku leeyahay samir iyo dulqaad waa beeshii ugu horeysay waxa weeye 15 sano waxa weeye kursi madaxweyne raadinaysay waxaan leenahay idinkuna waa mahadsantiin hadii ilaahay ku guuleeyay waxa weeye dalka waa in isbedel ka samaysan waa in isbedel waxa weeye la idinku xasuusto kuwii hore ee waxa weeye laba dareeyay aan samaynin mid ka badan waynu samaynaa insha Allah saxaafadda runtii lafteeda laba ilaabi karo doorkeedii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa bulshada waxa weeye si wanaagsan bay ugu adeegeen waxaynan kale waxa weeye iyaduna qaybaha bulshada kamid ah waxa weeye fanaaniinta oo wadaniyadii dalka soo nooleysay oo kumanaan iyo boqolaal kun oo dhalinyaro waxa weeye dibadda u soo saartay waad meelaysay waxa weeye inay ka koreen qabiilnimo laakiin ay qarannimo waxa weeye maanta ka gabyayaan waxa weeye dadkooda ay ku hogaaminayaan ugamaynaan baran waxa weeye heerarka noocaas oo kala in hore u garaacaan hadday garaaceen way yaray laakiin waxa weeye sanadkan way subulatay aad iyo aad baynu iyagana waxa weeye ugu hambalyeynayna halka ka sii wada baynu leenahay cidii dalka wuxuu dhintana de seeriga ku afuufa cidii waxa weeye dalka wuxuu qabatana de soo dhaweeyay waa soo jeedin aan u gudbinayo madaxweynaha cusub ee qarankan Cabdiraxmaan Ciro hadal badan isaga oran maayo waayo waa araga waana nin umada u soo bandhigay buug program oo ay ku qoran yihiin waxa uu qabanayo xisbigiisu run ahaantii qodobka ugu muhiimsan ee madaxweynaha xasuusin lahaa waxa weeye xisbiyada badan ee ka horeeyay way soo bandhigi jireen buugta laakiin muhiimadu waxa weeye xisbigeeda waxa weeye ka soo baxayo ka rusheegay buuggan uu dadka u soo bandhigay iyo waxaan dadka u ballan qaaday madaxweyne adoo ka duulay waxa dalkeena aafiyay inuu yahay waxa weeye waxa loo yaqaan musuqmaasuqa ama corruptionka adoo ka duulay waxa weeye dalkeena waxa weeye boqolkiiba 74 ay dadkii dhalinyarada ahaa ee wax bartay waxa weeye shaqo la'aan guryaha u jiifaan ama waa shaqo la'aan daandaamisay adoo ka fakaraya in dalkeenu boqolkiiba 97 waxay cunaan ay dibadda kala soo degaan oo ay yihiin dal aan waxba beeran oo halka waxa weeye ka hagaasay adoo ka duulay waxa weeye dabaqadaha samaysmay ee dadka ah ee qaarna waxa weeye ay sanada degeen qaarna hadii beekay ku leeyahay waxa weeye de 48 saacadood laga yaabay inaan dheriba waxa weeye dab saaran kuwa adoo ka duulaya adigoo og waxa weeye siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkan halka ay maanta marayso cadawada badan ee nagu hareeraysan aynu waxa weeye gamceena ku sameeynay adiga oo waxa weeye og hadii beedkeeda ku leeyahay dhaqaalaha dalka qaabkii loo maamulay in waxa weeye aan si isleeg loo maamulin oo waxa weeye dhaqaalaha dalka ka soo baxaya gobolada iyo degmooyinka reer Soomaaliland aanay u siinayn oo kifadu ay dhinac u dheeliday waxa soo dhan adigoo og sida kaliya aad hawsha kaga guulgaari kartaa ama kaga midho dhalin kartaa madaxweyne ma aha in aad tixgeliso waxa weeye kumanaanka waxa weeye mutadaawac ee xisbiga u shaqeynaya kugu soo ururi doona mid kasta doonaya wixii xisbiga ka galay in waxa weeye loo soo celiyo ama waxa weeye boos la siiyo ma aha in waxa weeye dadka soo shaqeeyo waxa weeye la abaal mariyo xaqna way u leeyihiin laakiin waxaan kugu boorinayaa inaad xulato dadka saari kara oo gaari kara waxa weeye waxa dadka soo ballan qaaday buuga dadka soo bandhigtay madaxweyne cid gaari karta xulo kriteeriyo ku xulo hadhowto kaasay ummadan ku codaysay ee dhowr 60 waxa weeye boqolkiiba maraysa kaasay kugu la xisaabtamayaan hebel madhirki iyo hebel wax ma la siiyay iyo hebel gaadhu iibsaday iyo kala guriyo dhistay iyo ankaaru degay iyo turkigu degay iyo gaadhina waxa weeye waa iskuulka caruurtiisa ku tagtaa midna uu ku soo adeegtaa waxaas cidina ka qorimayso waxa laga qorayaa in dadkan danyarta ee boqolkiiba 64 ee codka ku siiyay noloshooda waxaad ka bedesho ayuunba ku muhiim taana waxaad ku gaari kartaa adigoo xusho team adag oo hawshan ka saaraya oo wadaniyiin ah bidar dirira in hadii beedkeed ku leeyahay ay waxa weeye baraayirtii ama tixgelinta siiyaan inay dalkan u adeegaan halkii ay ka adeegan lahayn taasa ku muhiim ka fiirso muddo badan qaado la wada tasho dadkaaga oo dhan dadka waxa weeye wajiga ugu horeysa kama soo hadha baashu boodada hore faraska kama soo hadhay kasbarashka dadku qaadanayaan kama soo hadho waxa weeye go'aan qaadashada
dadkii kaa saari lahaa dalka ka xulo ha u eegin kana muddo badan ay ag taagnaa iyo kana haddii bedelkeed ku leeyahay maalin hadal iyo kana waxa weeye xisbiga lacag geliyay laakiin waxaad intaa ku baraxdaa yaa kale wax qaban karaya waxaan anigu qabaa maalinta waxa weeye programkaagaasi waxa weeye aad fuliso in shaqo la'aantu ay hoos u dhici doonto in kala sarreynta dabaqadaha dadka Soomaaliland ka abuurmay hoos soo dhici doonaan in suuqyadu xorta ahaa ee dabarku ay soo noqon doonaan waayo suuqyadu maanta waxa weeye waa kuwo u xiran shakhsiyaad iyo qaar u xiran kooxo waxaan maraynaa waxa weeye monopoly iyo oligopoly waxaan loo yaqaanaba dalkeenu waxa weeye maanta ku jira in suuqyadu xorta soo celiso ballanqaadkaaga iyo buuggaaga way ku jirtaa madaxweyne ka dhabeetaasi nolosha dadka ayay qayb ka noqonaysaa in waxa weeye ay wanaagsanaato mar kasta checklist-kaagu ha noqdo inaad gaadho indicator aad dadka u ballanqaado inaad kaga duwanaato madaxweynayaashii hore intay wax ballan qaadaan fulin waayey waa arrin muhiima oo taariikhda kuu geli doonta kulleyba way dhacdaa in madaxweyne kastaaba waxa weeye uu dhaliila yeesho sababtoo dadka Soomaaliland anigu aan laftoodu ka tirsanahay aan madax dhaqameedka u hayba dhaliilo badan leh oo dad qabyaaladii hadii jeer ku shaqeeyo waxa weeye maxaa beeshayada loo qabtay wax la mid ah iyo maxaan anigu helaya abuur wadaniyad dadkana waxa weeye bedel wala bedeli karaa madaxweynuhu uu bedeli karaa ummadiisa uu bedeli karaa kaliya waxay ku xidhantay waxa weeye marka waxa weeye taa arinta ka run sheegto hantida qarankana la ilaaliyo lana arko waxa weeye dad hantida qaranka waxa weeye hadii bedelkeed ku leeyahay ku takrifalkoodii dad waxa weeye lagu abaalmariyay taasaan waxa weeye madaxweynaha soo jeedinaya waxaan ku soo gunaanadayaa waa corruption xanuunka dalkeena haya ma hadad la'aan ma dhaqaale la'aan ma hadal yaraan ma hadad hadii bedelkeed ku leeyahay dadaan tacliil lahayn ma haysan waa corruption kana madaxweynaha ka saabay wuxuu lahaa waa la dagaalamaya welina xididadu goosto waana ka inflation maanta boqolkiiba 7 kordhay 6 bilood gudahood hawlaha soo dhanba ku sugaya ilaahay waxa weeye ku guuleeyo taas baan waxa weeye kula dardaarmaya waxa kale runtii iyaduna muhiima inaan wax ka sheego dhowr qodob waan arko in ay tahay casharaan ka baran karno waxa weeye doorashadeenan imika inoo qabsoontay waa ma kaga duwanay doorashooyinkii hore mid weeye horta waa doorashadii ugu cod badnayd ee codkii ugu badnaa abid lagu kala helo reer Soomaaliland dadka codka faraha badan leh waxay muujinayaan dad ciro jecel waxay muujinayaan dad waxa weeye hadii bedelkeed ku leeyahay doonaya isbedel oo noloshu ay ku adkaatay waxa weeye dad hadii bedelkeed ku leeyahay xulafaa sida doonta uga jawaab waxa hubaala dadkaasi inay u badan yihiin danyarna waxay u baahan tahay waa la garanaya waxa kale doorashadan ay caam ku ahayd waa doorashadii dadkii ugu badnaa reer Soomaaliland aan codeynin waa markii ugu horeysay ee dad tira inta leeg ay Soomaaliland waxa weeye oo kaararka qaatay aan codeynin kaliya ma oran karno dadkaas kaarar baa ka lumay ama waxa weeye way wahsadeen laakiin waxaan oran karnaa in badan oo bulshadeena kamid inay ka qanceen doorashooyinkeen oo waxa weeye Soomaaliland nimadii iyo wax la bedeli karo ay u arkaan midaan suurtagal ba ka ahayn waxa weeye dalkan madaxweyne dadkaasna soo noolay qalbiyadooda haddii waxa weeye qalbiyadooda la soo noolayo dadku iyaga codeynaya ayaa insha Allah la arki doona arrinta kale doorashadana waxa weeye ay la yaabka ku lahayd waxa kamid ah wadaniyad baa muuqanaysay waxa muuqanayay dad aan cirana jecelayn buuse bixina jecelayn laakiin wadanka jecel oo u ooleenayeen isbedel dhaco kelmadda halayska ahayd ugu muhiimsan waxay isbedel oo dad badan wax weey kasbatay runtii taasina waa muhiim waxay ahayd doorasho beelihii oo dhani badankoodii ay jaw wada socdaan qodobka kale waxa weey dheeraadka waxa weey taa ka soo baxay waxay kamid ahayd doorashadan ay kaga duwaneed kuwii hore inta badan oo caalamka ah waxa weey ku qasbanaaday waxa weey inay ka soo qayb galaan oo Soomaaliland sheegaan waxa xaqiiqadii ka jira runtii doorashadii inoogu hambaliyay inay si wanaagsan inoogu dhacday laakiin doorashadu inay si wanaagsan inoogu dhacday madaxweyne la soo baxna ma kaliya waxaynu u soconay waxaynu soo bixinay isbedelkuna waxa weeye nolosha dadka aqoonta dadka hadii bedelkeed ku leeyahay iyo in waxa weeye dalkani uu garto cadawgiisa
intaas waa muhiim qodobka ugu dambeeya waxa weeye qodobka nabadgelyada wuxuu xusayaa waxaad madaxweyne dalka qabsan doontaa iyadoo qaar badan oo kumanaan ku codeeyay gobolka Sool ha markii hore ay maanta yihiin waxa weeye mucaaradan dalkan la tusi karin oo had iyo jeer waxa weeye lagu ababiyo oo waxa weeye lagu waaniyo waxa weeye loogu heeso inay dalkan nacaan ama ay saaq waxa weeye had iyo jeer ka fogaadaan iyo ereyal lamid adiga waxaasi ma hawl ku taala waxaan doonaynaa inaanad colaad ka shaqeynin waxaan doonaynaa inaynan cidna weerarin wixii waxa weeye qaranku ka fursan waayo mooyaan waxaan doonaynaa dalkan inaad bedesho oo dalkan markaad bedesho cid kasta oo nolol doonaysaaba waxa weeye ay soo kulaasho ay timaado haddii dalkan waxa weeye wax laga qabto oo madaxweynayaasha waxa weeye dalka reer Soomaaliland gaar ahaan ban nimankan isaaq ah waxa weeye kursiga u badan haday dalkan wax ka qaban lahaayeen dalkan waxa weeye dadka Soomaaliyeed oo dhan waxa noqon lahaa waxa weeye meesha ay soo higsadaan ay kulaalaan laakiin markii uu noqday waxa weeye gabaahiir dadkana weerar uu la geliyo 30 sanado loo tilmaamay in geed hebel iyo xariiq hebel ay gaadhno dalkii wuxuu noqday faqri wuxuu noqday mid burburay wuxuu noqday mid isnacay wuxuu noqday mid haba yaraatay waxa weeye aan buuxin karin kaalintii laga filayay wuxuuna noqday mid waqtigii xorta ahaa iyo waxa uu qabsoomay ay aad u kala fog yihiin fahmi kaysa xirsi bulsha TV Bro